بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 501 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان وفيه ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تصيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وفيه ثم انطلق بي فإذا أنا بالنساء تنهش ثديهن الحياة. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. رواه النسائي في سنن الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تهي 12 bishii Ramadaan, bishii sagaalaad hijriga sanadka 1442, isla markaana waafaqsan 24 bishii afraad Abriil sanadka 2021. saan mar horeba soo baraarujiyey. alxamdulilah, ilahay baa subxaanahu wa tacaala nacaafiyey. ilahay baa mahad iskale. uma ducooyinkiina ilahay subxaanahu wa tacaala maartay idinka aqbalay. intaa kadib waxaan rabay inaan hal xadiid aanu isku baraarujinno, kadibna maadaama bil cibaado oo ramadaan lagu jiro, inay qur'aan akhris iyo cibaadada dadku ay ku dadaalaan bacda ramadaan aan su nimaano. xadiidkaasna aan rabay inaanu cilaan ahaan ka dhigo inay xaaladdu dabiici tahay. alxamdulilah, aanu fiicnahay. xadiidkan xadiid dheer weeye. xadiidka waxaa soo saaray, markaan maraajicdii iyo masaadirtiisa aan u celinno, alimaam النasaa'i kitaabkiisa sunan اkubraa, sidoo kale alimaam ibnu khusayma kitaabkiisa saxiixa, ibnu xibaan, xaakim, bayhaqi iyo keyrkood. xadiidkuna waa xadiid saxiixa. sheekh albani raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku saxiixinayaa saxiixu tarkiib watarhiib ilaa 2 meelood, iyo silsila saxiixa sidoo kalena wuu ku saxiixinayaa. saxiixu tarkiib watarhiib mujaladka koobaad raqamka xadiidka 1005 buu ku tasixinayaa baabka atarkiibu min ifdaari shayin min ramadaan min gayri cudrin. waxaa kaloo ku saxiixinayaa mujaladka labaad raqamka xadiidka 2393 oo meeshaanu ka soo xiganayna hadda maanta. kaa hore wuxuu ahaa xadiidku mukhtasar, laakiin midkan ayaa muwasac oo muwadal markaa maata mudawal ah. sidoo kale silsila saxiixa wuxuu ku saxiixinaya raqamka xadiidka 3951. idan xadiidku waa xadiid saxiixa weye. xadiidku wuxuu ka sheekeynayaa, intaa markaan kaga baxan xadiidka ta'siilkiisa, waxaan ujeedaa xadiidka takhriijintiisa iyo maraajicdiisa loo celiyo iyo xukunkiisa inuu xadiidku xadiid saxiixaya. cinwaan ahaan waxaan ka dhigaynaa, aanu leenahay atarkiibu min ifdaari shayin min ramadaan min gayri cudrin. cabsigeliska la iska cabsigeliyo afur la afuro ramadaan wakti ka mido inuu qofku iska afuro, ama maalin iyo wixii lamidkaa, isagoo cudurdaar sharciya waxba haysanin, inuu soonkii qaybo ka mida afuro uusa soomin, waciidka ku soo arooray iyo cabsigeliska iyo khuduurada ay leedahay. kaasaan ciwaan ka dhigaynaa. xadiidku waa xadiid dheer weeye. abu umaama albaahili baa nabiga ka warinaya calayhi salaatu wassalaam. xadiidka waxaan u soo qaadanay, xadiidku 8 arrimood buu ka hadlayaa. nabiga waa la dheelmay, hurdo manaam baa la qaaday, 2 nin la qaadeen, meelo badan baa la mariyey, waxyaabuhu arkay buu ka sheekeeyey. 8 arrimood ayuu xadiidka kaga dhex hadlay oo nabigu uu ka sheekeeyey. laakiin 8kii 2 ka mida ayaan jeclaystay inaan bulsho weynta soomaalida aan la qaybsado. 2daa ka mida waxaa weeyaan, midu waa dadka bilaa cudur iyo sharci la-aan iyo wax ruqsa iyagoona haysanin, sharciga ka haysanin, iska afura. xanuun ma hayo, musaafir ma aho,
waayeel ma aho qof dumaroo ama cunug nuujinaysa ama uura may aho qof kale oo cudurdaar sharci haysta ma aho intiiba midna isagoon lahayn wax cudurdaara lahayn dadka iska afurhaya in badanoo muslimiinta ka midana way sameeyaan arrinkaas marka ama ha yidhaahdeen shaydaan baana duufsaday waxay doona ayagu ha yidhaahdeen ramadaanka laiska afurhayo oo iyadoo ramadaanta uusan qofku soomin dhibaatada ay leedahay waa qayb weeye qaybta kale labaad arrin ramadaanka ka baxsan laakiin bulshadu aan isleeyahay in badan oo ka mida way ku aafaysan yihiin khuduurada ayadna ay leedahay oo maxay tahay dumarka aana carruurtay dhaleen aan nuujinin cuquubaday la kulmahayaan cunugu markay hooyadii dhasho xaq wuxuu u leeyahay xuquuqda hooyadii ku leeyahay waxaa ka mid a inay naaska nuujiso ugu yaraan 6 bilood sida adibadu ay sheegeen 6 bilood ugu yaraan inuu cunug hooyadii nuugo cunugana caafimaad bay u tahay ayadna caafimaad bay u tahay adduun iyo aakhiraba labada meelood 8 arrimood xadiidka uu ka hadlayo labadaasaan jeclaystay inaan bulsho weynta Soomaalida u soo la wadaago in hadda ka hor qaadanayna waa laga yaabaa xadiidka inta kadib xadiidka macnihiisu waxa weeye abu umaama al-baahili saxaabiga jaliilka wuxuu leeyahay samictu waxaan maqlay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaquulu asagoo leh bayna waqti ana anugu naa'imun aan jiifo ataani waxaa ii yimid rajulaani 2 nin baa ii yimid marka 2 nin baa ii yimid waxay qabteen labadayda cudud bay qabteen way qaadeen saasuu sheekadu u socotay wa fiihi waxaa ka mid ah xadiidka thumma dalaqa bi way la tageen nimankii faidaa ana waxaaban ku soo baxay biqowmin qolo mucallaqiina yihiin kuwa lalmada ama la suray bicaraaqiibihim boqnahooda la soo suray meel mucallaqa bicaraaqiibihim waxaa la yihahdaa yacni neefka markii la qalo ee hiliblaha neefka uu qalo ari iyo loo wuxuu doonaa ha ahaado meesha laga soo lalmiyo neefka boqontiisa intii la duleeliyo oo bir la geliyo ayaa meel dheer lasoo surhayaa ama geed ama waxbaa lasoo suri neefki saasuu u lalmanhayaa kolba intii la rabo hilibaa laga jarhayaa dad waxaan soo maray buu yidhi sidaasoo kale boqnahoodii meel laga soo lalmiye wey mucallaqiina ay yihiin kuwa meel lagu xidhay bicaraaqiibihim xubno maaragtay boqnahoodii ay ku xidhan yihiin oo saa u soo lalmadaan mushaqaqatin la dilaaciyey ashdaaquhum qowlalahooda iyo afkooda labadiisa dhinac la dilaaciyey tasiilu ay qulqulayso ashdaaquhum qowlalahoodu ay qulqulayso daman dhiig labada qowlo ama labada af ee labada dhinaca ayaa la dilaaciyey dhiig bay ka qulqulaha marka dhiig baa ka qulqulaya boqnahooda ayaa la soo suray meel hoos bay u foorran way lalmadaan afkiina waa la kala dilaaciyey dhiig baa ka socda waa suuro bashico aad u foolxun weye qultu waxaan idhi buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu qultu waxaan idhi man haaulaa'i war dadkan sidan loo ciqaabahayo waa ayo qiila waxaa la yidhi haaulaa'i kuwa aladiina kuwii weeyaan yuftiruuna afurahayey qabla taxillati sawmihim soomkoodu intaana afurka la gaadhin kuwa afurahayey bimacnaa soomkoodu intuusa xalaal noqonin afurkiisa kuwa afurahaya wey yani xadiidku wuxuu halkaa ka baraarujiyey dadka aana xaqiiqsanaynin qoraxdu inay dhacday oo qoraxdii oo laga yaabo inay soo jeedo deg deg intay sameeyaan iska afurhay lamana rabo inaad saad u fadhid habeen mugdi aad afurtina lama rabo qoraxdoo soo jeedina inaad afurti lama rabo hataa aadaanka inaad sugtay shardi maaha inay qoraxdu dhacday inaad hubsati baa la rabaa mar haddii qoraxdu saa u dhacdo afurki waa kuu bannaanya mar haddayna ayagoona hubsan inay afureen waciidkaasay ku dhacayaan waxaa intaa min baabi awlaa ka sii daran qofka aana soominba kan asagu wuu soo soomayo afurkii buusa hubsanin qoraxdoo soo jeeduu afuray kii aaman soominba ooba soomba isku taabanin ama soomkii maalmo ka mida ayuu afuray oo iska afuray isagoona wax ruqso haysanin sharciga cudurdaarra ka haysanin kaana waa ka sii daran yahay waciidka wuu soo gelahayaa qowlalahoodii baa la dilaaciyey dhiig baa ka qulqulahaya boqnahoodiina meel baa lasoo suray saasay u lalmadaan markii la weydiiyana waxaa lii waa kuwa afura wakhtigoon la gaadhin afura wey ama soonkaba aan soomaynin haddana xadiidka wa fiihi waxaa ku jira uma indalaqa bi haddana waa ila tageen fa idaa ana waaba anigoo binisaa'in haween baan ku soo baxay tanhashu ay rudhayso saa u cantuugayso
thadyahunna naasahoodii alxayaatu abeeso naashigu goosashada shayga saa loo cantuugahayo wey loo qaniinayo tanhashu ay qaniinayso alxayaatu maarata abeesooyinkii thadyahunna naasahoodii ayay saa u rudhaysaayo u jaqaysaa qultu abeesaad jaqaysa waa abeesa wey qultu waxaa yidhi maa baalu haaulaa'i war dadkan la ciqaabahayo haweenka saa loo ciqaabahayo oo naasahoodu abeesadu ay jaqayso maxay ahaayeen qiila waxaa la yidhi haaulaa'i kuwa haweenkaas allaatii kuwii weeyaan yamnacna diidahayey awlaadahunna carruurtoodii albaanahunna caanahooda u diidahaya wey xadiidku waa dheeraa ikhwat alislaam waliimaan waxaan rabaa inaan soo gudbiyo labadaas suura ee xadiidka lagu sheegay xadiidku 8 suuro ayuu ka sheekeeyey oo suuro waxaa ka mid ah 8 haddaan dul maro suurada koobaad meel buura ayaa nabiga la yidhi fuul wuxuu yidhi ma fuuli karo annagaa kuu sahlayna fuul baa libuurti markuu fuulay oo buurtii bartankeedu uu marahayo ayaa sawd iyo qaylo aad iyo aad u xoog badan buu nabigu soo maray ku soo baxay war dadkan saa u qayliya sawdkan maxay ahaayeen waxaa lagu yidhi waa dadka ehlunaarka dhawaaqoodii iyo cabaadkoodii wey suurada labaad waa middan dadkan aan soomaynin weeye suurada saddexaad waxaan haddana soo maray buu yidhi qolo aad iyo aad u bakaqsan oo u dibirsan oo urkooduna aad u qurmuun yahay ayaanu soo maray mandarkoodii muuqaalkooduna xun yahay waxaan ku yidhi dadkaa maxay ahayn waxaa ligu yidhi dadkaas baktiga aad u qurmuun waa qatla alkufaar gaalada la laayey way gaalnimadka lagu dilay qolada afraad waxaa weeyaan waxaan soo maray buu haddana qolaan soo maray ayaguna saasoo kale u dibirsan oo aad u intifaaqsan oo bakaqsan aadna u qurmuun musqulo oo kale aad moodi buu yidhi urkoodu maraaxiid oo kale aad moodi dadka waaya markaan idha waxaa liigu yidhi waa ragga zaaniyiinta iyo haweenka zunaadda weeyaan ragga iyo dumarka zaaniyaasha weeyaan ee zinada markaa maaragtay ficilka faaxishta sameeya qodobka kale ku soo xigay waa midkan haweenka maaragtay abeysadu naasahooda jaqayso qodobka kale ku soo xigay haddana wuxuu yidhi waa i qaadeen waxaan maray 2 wiil oo meel ku ciyaarhaya meel webi bayna nahar 2 wiil dhexdood 2 wiil oo ku ciyaarhaya ayaan maray waxaan yidhi 2daa wiil maxay ahaayeen markaasaa ama carruur 2 wiil ma maarata fayda ana bighilmaan wiilal ama carruur ciyaaraysa 2 wiil dhexdood carruur ku ciyaaraysa ayaan maray maxay ahaayeen markaan idha waxaa lagu yidhi daraari lmu'miniin mu'miniinta carruurtoodii weeye mu'miniinta carruurtooda yar yarka ee maarata saqiirnimadka ku dhintaan wey haddana waa i qaadeen waxaan maray buui 3 nin oo khamri cabahayaan maray buui war dadkaa maxay ahaayeen markaan idhi waxaa la yidhi waa jacfar bin abi taalib iyo zayd binu xaarith iyo maaragtay cabdullahi binu rawaaxa waa 3dii qaswatu mu'ta ku shahiiday weeyaan haddana waa i qaadeen waxaan maray buu yidhi 3 qof baan haddana maray haddana waxaan ku yidhi war dadkaa maxay ahaayeen markaasaa liigu yidhi haadaa ibraahim wa muusa wa ciisa wahum yantadiruunak 3daa qof ee u dambeeya waa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi ciisa wayna ku sugayaan 8daa nooc baa xadiidka lagu sheegay idan ikhwati filaahi xadiidkan 8daa qaybood annagu 2 ka mida maan jeclaystay inaan soo gudbiyo 2daa waxaa weeyaan waa dadka aana soomaynin ramadaanka ama isagoo dhan ha ka wada tageen ama qayb ka mida ha ka tageen ama hal maalin ha ka tageen dadkaas waciidka ku soo arooray iyo dhibaataday la kulmahayaan boqnahooda intii la duleeliyey in meel laga soo suri afkana la dilaacinayo dhiig uu ka qulquli iyo dadka afurka aana hubsanin qoraxda dhicitaankeeda aana hubsanin dadkaas waciidka ku soo arooray inay ummadda muslimiinta khaasatan luqadan ku hadlaya soomaalida inay aad isu ilaaliyaan arrintaas oo lagala hadlo qofka aan soomaynin in lala hadlo arrintaas iyo dhibaatadu la kulmayo arrinta kale labaad rabay inaan soo gudbiyo waxaa weeye haweenka aan carruurtooda nuujinaynin hooyada xaqa cunuga uu ku leeyahay waxaa weeye inay nuujiso markay dhasho waa xaqa cunuga uu ku leeyahay wey sida la sugayna ayadana caafimaad ahaan inay cunuga nuujisaa u fiican cunugana inuu hooyadii caanaheeda nuugaa u fiican waciidka ku soo arooray uu nabigu yidhi haween baan soo maray abeese ay naasahoodu jaqayso naasahooda jidhkooda kalema taabanaysa naasahan bay abeesadu ka jaqaysaa war dadkan maxay ahaayeen markaan idhina waxaa ligu yidhi waa haweenka u diida carruurtooda caanahooda u diida wey bimacnaa aanan nuujinaynin wey waad aragteen hadda reer galbeedka
iyo qaswi fikriga nagu dhacay inay haweenkii la dhihi in badanoo hooyooyinka ka mid a ayagoo dhan ma wada aho na cunug hadduu ama aad nuujisi waxaa tegaysa jidhkaadi baa jilcahaya waa yeelnimo degdega kugu dhici iska ilaaliya waxba ha nuujinin saas darteed haweenka qaarkood ay dhahaan maanu caanaba maba lihi cunug wuxuu iga nuuga male iyo wixii lamidka dadka noocaa samaynhaya qof waa dhici karta inuuba ilaahay subxaana wa tacaala caanaba uusa u yeelin qofka waa macduur wey laakiin hooyada intay cunugeeda dhasho caanana ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ku beeray ay caanihii raxmadda u ahaa cunuga iyo caafimaad u ahaa u diidda waciidkaasi la kulmaysa abeesadaasaa lagu ciqaabayaa oo naasaheeda jaqaysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayna biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga ilaaliyo dunuubtaas oo dhan iyo waxyaabaha khuduurada alimaamu dahabi raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay ramadaanka oo liska afuro iyadoona qofku cudurdaar sharci u haysanin kabiira min alkabaa'ira weeyaan waa dembi weyn oo kabaa'irta waaweyn ka mida weeye saas darteed bu asagu wuxuu ku darhayaa alkabiiratu alcaashira uu leeyahy kabiirada tobnaad iftaaru ramadaan bilaa cudrin weeyaan walaa ruksatin kabiirada tobnaad waa ramadaan afurkii biduuni sabab liska afuro iyo ruksa la'aan waxaa kaloo imaam dahabi uu soo gudbinaya uu leeyahay muuminiintii agtooda waxaa muqarar ka ahaayoo macruuf ahaa qofka ramadaanka aana soomin ama qaybo ka mida ka taga bilaa maradin walaa cudrin ka taga annahu sharun min azani zaaniga inuu ka daran yahay walmukaas ninka maarata canshuur qaadaha ah iyo wa mudminu lkhamri ninka khamriga joogteeya sidaasaa muslimiintu aaminsanaan jireen bal wuxuu leeya imaamu dahabi yashukuuna fii islaamihi islaamnimadkiisay ka shakiyi jireen wayadunnuuna bihi waxay malayn jireen annahu zindiiq inuu yahay bay malayn jireen zindiiqu waa ninka islaamka muujista gaalnimana qarsada wey idan halkaasay muslimiintii ay gaadhsiiyeen qofkaana ramadaanka aana soomin ama qaybo ka mida ka taga inuu zindiiq iyo munaafiq yahay oosan muslim ahayn bay qaarkood aaminsanaayeen ninka zaaniga asagaa ka daran bay dheheen zaaniga wuu ka daran yahay iyo ninka cashuur qaadaha iyo ninka khamriga caba intuba isagaasaa ka daran bay dheheen idan waa arrin khatara waa ikhwatii filaahi labadaa jumlo ayaan waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago meel kastoo joogtaanba marka inuu qofka muslimkaa iska ilaaliyo bil ramadaan isagoo caafimaad qaba wax ciladana jirin inuu iska afuro oosa soominba inuu iska ilaaliyo qodobka kale labaadna gabdhaha muslimaadka ee hooyooyinka ilaahay subxaana wa tacaala nicmo u siiyey inay awlaad yeeshaan in caruurtooda ayna ka hoojinin ayna ka hor istaagin caanaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beeray ayadna caafimaad baa ugu jira inay nuujiso cunugeedana caafimaad iyo waxaa ugu jira koritaan iyo qiimo ciqaabta allana way kaga badbaadaysaa intaasaan jeclaysa inaan idiin soo gudbiyo ilahayna subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusa nagu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa aad iyo aad baan idiin salaamhayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay ramadaan kariim inaanu ka faa'idaysano bisha ramadaan axaadiidteennina halkaas inoogu joogaysaa bacda ramadaan baanu isku soo noqonaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum hal mar baan xadiidka akhriskiisa aan ku noqonayaa alxadiidu 501 can abi umamata albahiliyi radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul bayna ana naa'imun ataanii rajulaani wa fiihi ثuma اndalaqa bi faida ana bqowmi mucallaqiina bcaraqibihim mushaqaqaة ashdaaqhm tasiilu ashdaaqhm dama wa fiihi ثuma اndalaqa bi faida ana bnisaaءi tanhashu hadyahuna alxayaatu qultu ma baalu haؤulaaءi qiila haؤulaaءi allaati ymnacna أwlaadahuna albaanahuna alxadiiث rawaahu النasaaئiyu fi sunan الكubrى وبن khusayma وبن xibaan والbayhaqi والxadiiثu صaxiix hada وصلى الله على نabiyina mحamadi وعلى آله وصaحبه أجمaعين